geedkii iyo cawskii. beri waxaa jiray geed weyn oo ka baxay webi agtii. wuxuu ahaa geedka meesha ugu da'weyn. waxaa hareeraha ka xigtay dhir badan oo ka da'yar. geedkani wuxuu ku faani jiray oo had iyo jeer ka hadli jiray inuu geedka ugu weyn meesha yahay. wuxuu had iyo jeer ka hadli jiray waxyaabaha kala duwan ee uu arkay. xasuus badan ayuu lahaa. wuxuu ku faani jiray inuu yahay geedka ugu xoog weyn, waayo wuxuu ka badbaaday dabaylo xoog weyn, duufaano culus iyo kulaylka fallaaraha qoraxda. webiga agtiisa waxaa ka baxay caws. geedku mar walba wuxuu xasuusin jiray inuu awood badan yahay. wuxuu odhan jiray, haddii aad xadhkayga hoostiisa ka bixi lahaydeen, dabaysha ayaad ka nabadgeli lahaydeen. laakiin cawsku wuxuu mar walba ku jawaabi jiray, halkanu ka baxnay ayaannu ku mabsuudnahay. waa hoygayagii, waana meesha keliya ee aanu naqaan. waa hagaag, laakiin kolay dabayshu siday idiin qalloocinayso ee madaxa aad foorrinaysaan way idin dhibaysaa. anigu waanigaa taagan ee dabaysha iska celinaya, ayuu ku faanay geedkii. cawskii wuxuu ugu jawaabay, hanaga warwarin geedkii naxariista badnaayo. waannu qaloocsami oo foorarsan, laakiin ma jabayno. adigu ma foorarsanaysid. xoogga dabaysha waad iska celinaysaa, laakiin inteed ku wadi kartaa? intuu cawsku hadlayay, duufaan ayaa bilaabmay oo webigii soo maray. geedkii wuxuu sameeyey wuxuu mar walba samayn jiray, oo xoog ayuu dhulka u qabsaday isagoo xididadiisa isticmaalaya. cawskiina wuxuu sameeyey wuxuu mar walba samayn jiray, wuu qaloocsamay oo foorarsaday. waxay u eekayd in dabayshu aanay joogsanayn. way soo noqotay iyada oo ka sii xoog weyn sidii hore, oo karbaashtay geedkii iyo cawskii. markaasuu geedkii sii daayay halkuu haystay oo xididadiisii soo baxeen. duufaankii wuu dhaafay, waxaanuu ka tegey geed dhacay. cawskii meeshiisii ayuu ku hadhay oo wuu ka baxsaday dhaawac. murtida sheekada maxay tahay? marmar madaxadayg iyo iska caabin waxbay ku yeeli kartaa. waxa dhaanta dabacsanaan markay noqoto dhibaatooyinka nolosha. haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like amba share si aad noo taageerto.